dadka Soomaaliyeed in badan aan anagu ka dignay dawladuna muxuu ahaa banaanbaxaas mar hore aan ku dhawaaqnay markii koowaad iyo markii labaad ma aha intaasna muxuu ahaa bal nidaamka iyo mushkilad hal ilaaliyo oo muxuu ahaa fasaxa la doonto oo ayadoo sharciga iyo dastuurkuba xataa oo noo banaynaya haddana bal si aan marmarsi loo helin fasaxi waa la waayay laakiin haddee markaa nin qaldan waqtigiisii dhammaaday xilligiisii dhacay xuquuqdii aasaasiga ahayd haddii aan anagu tanaasul ka sameynay dadka Soomaaliyeed ay ka sameeyeen xataa weli aan u soo istaagaynin marka banaanbaxaas uu dhacaa haddii aan la yiraahdo banaanbax nabadeed waaye oo lagu xoojinayo nabadda iyo muxuu codka dadka shacabka Soomaaliyeed in codkooda la dhageysto taas waa qodobka kale dawladnimada Soomaaliya waa soo jirtay waa sii jiraysaa dalkan waa dawlad uu leeyahay dawladiisu waa jiray waxa mas'alad ay ka taagan tahay hogaankii iyo mas'uuliyaddii waaye iyo xilliga dhammaaday waaye waxa laga hadlayo billaahi calaykum madaxweynihii hore annaga waa sheegnay xilka waa ka dhammaaday waqtigiisa waa dhammaaday wixii laga sugayana waa keeni waaye waxaan rabnaa inaan halkan maanta aan ka caddayno madaxweynuhu madaxweynihii hore mushkiladuu qayb ka yahay xalka qayb kama ah dadka rajada kusii xiraaya marka inuu xalka qayb ka noqdo waxaan isleenahay in ay dib u eegaan wadadii la soo maray iyo waayihii la soo maray u baahan tahay 4 sano oo muddo u haysta madaxweynaha cid ka hortimid iyo cid qabsatay iyo cid la dagaashay iyo cid xataa banaanbaxa aan maanta ku dhawaaqayna xataa maalin sidaan oo kale ay mas'uuliyiin siyaasiyiin ah banaanbax ay hor joogaan oo ay leeyihiin ay ku dhawaaqeen ma jirin taramkiisaan ixtiraamayna dadkan kor iyo hoos ugu sheegayna madaxweynuhu muddo la doortay muddo uu leeyahay lama hadli karo baarlamaanka sidoo kale haddii ay dhammaadeen sidii lagu badlamay wuxuu markay dhamaadaan wax lagu bedelana caqabada la hor dhigay oo la socodsiin waay haddana aanay soo muuqanin annaga walwal badan arrintaas ka qabnaa walwalkeena iyo walwalka shacabka Soomaaliyeedna waa ugu soo dhacayaan fariimahooda iyo dareenkooda taas waaye mid ugu horeyso in laga jawaabo u baahan waxaa kaloo rabnaa ma aha kaliya mas'uuliyiinta maanta joogta in xilligooda uu dhammaaday mas'uuliyiinta hore ay yihiin marka aan leenahay mushkiladay qayb ka yihiin xalka qayb kama aha mithaalka ugu sahlan sheey kana waa maxay magaalada Muqdisho wadadii dabka dhagax la dhigayaa saakana gadaa ciidamo loo sii raray adiga maxaa ku macnay kartaa bal qofka Soomaaliga ee aqligiisu uu fiyo yahayo maxaa ku macnaynay amni darra magaalada Muqdisho loo joogi laayay wadadii dabka ee Makka Mukarrama dhagax dhinac laga dhigayaa laakiin ciidan iyo qalab iyo hub iyo adduunyo waxa lagu gurayaa diyaarad lagu daabulayaayo gobolka Gado la geynayaa gobolka Gado gobol Soomaaliyeed waa dadka Soomaaliyeed degan nabaday u baahan yihiin is afgaraday u baahan yihiin dib u heshiisiin iyo wada hadal iyo wada xaajood iyo walaalayaal in loo abaabulay u baahan yihiin siyaasadeeda dadka dawlad goboleedka ay ka tirsan yihiin iyo dawladda dhexe haddii xataa uu farqi ku yimid in laga wada hadlo laga heshiiyo ay u baahan yihiin haddii madaxweynaha shalay gobolka Gado hal xal mushkiladiisa markii la dhuusan marab oo dadkii joogo wali in la sii hadlo diyaar oo ka soo safray maantana oo ciidamo si daabulaayo oo leeyahay doorashadiina aanay soo soconin oo hadda wixii lagu heshiiyo dhan ay waxba ka socolayeen ilaa maanta la joogo bari iyo caawa iyo bari dab wixii imanaya ilaaha garanaya soo sax ma aha marka inaan dhahno madaxweynihii hore mushkiladu qayb ka yahay xalka qayb kama ah waxaana loo baahan yahay qofka hadduu mas'uul yahay ama xil ha haayo ama xil hore ha uga dago ama mid hore soo qabto ama mid hadda u socdo hadda qaban xil inuu qabto rabo yahay mas'uul waay mar walba waa inuu xalka uu qayb ka noqdaa oo aanu marna qayb ka noqonin mushkilada iyo khilaafka iyo colaadda iyo isdilka iyo dhiigga Soomaaliyeed daadintiisa meel ay cudurdaar ku leedahay ma jirto siyaasad ay cudurdaar ku leedahay ma jirto awood dawladnimo cudurdaar ku leedahay ma jirto waxaan rabnaa marka dadka Soomaaliyeed u sheegaynaa mushkilada dalkan haysatahay dawladdiisa waa jirtaa dawladdu leeyahay waa soo jirtay wayna sii jiraysaa insha Allah waana sii xoogaysanaysaa laakiin hoggaanka maanta jooga ee sharciyadii ka dhamaatay inay ka dhamaatay inay aqbalaan diidan waxa cudurdaar laga dhigtay meeshaan firaaq inuu dhaco ma rabno هذا فراغ إنه هذا كشقي وهاي شلون هذا كسر شقي سمعت هذا كشقي أفر سنة مدة قبتي سياد وقف فكرة الفراغ إنه ندعي
haddana marka ka soo shaqaysa inuu firaaq dhaco maantana aad meesha la soo istaagtay firaaq inuu dhaco ma ogolin qof la doorta aniga bedelayo qof la doortadiina aad diidan tahay inay meesha timaado iyo sidii lagu dooran lahaa in laga wada hadlo laga xaajoodo laga heshiiyo ila si qaanuuni ah iyo sidii habbooneed adaa ku keeni weyda waqtiga saxda ahay dadka Soomaaliyeed ha fakaraano caqligooda ha soo noqdo mas-uuliyiintii hore ee dalkan meesha uu maanta jooga soo istaajisay maxaa la dhihi jiray Soomaalidu maxay ku maamaahi jirtay ninku dilay harkuguma jiido meena wixii la dhihi jiray hoggaanka maanta dalka jooga dalka meesha inuu soo istaagay sabab u yahay xal laga sugayo sabab maana waa sheegnay xalkan qayb kama noqon karaan mana aha haddii xataa qayb ay ka noqonayaan ahlan wasahlan keligood laguma hadlayn karo meel intaan u soo saacnay 4 sanaan meel u jiifnaan lahayn dalka mas-uuliyiin uu leeyahay hoggaan uu leeyahay waa la doortay dimuqraadiyad waa lalama hadli karo lagama daba hadli karo lagama hor imaan karo aan soo lahayn wixii khaldanna aan u sheegayno la war meeshaan wasadaan waa laga fiican yahay war sidaan si ka fiican loo suubiyaa jirto war sidaan qaanuunku ma ogolo war sidaan waxay ka soo horjeedaa muxuu ahay wixii aan ku heshiinay waa soo lahayn 4 sano laakiin marna su'aal ma gelinin sharciyadda hoggaanka iyo hay-adaha dalka jiro laakiin ayagaa su'aal geliyey ayagaa keenay meesha maanta ay taagan tahay waana la iswarsanaa waxaan qabnaa taas waa qodob kale waxaan rabaa saaxiibada Soomaaliya sidoo kale ayagana dardaaran waata ku eedayn mayno laakiin waa kula dardaarmayna xalka inay qayb ka noqdaan oo dhinaca xalka jiro ay ka jiriyaan oo qofkii xalka aan soo wadin ay yiraahdaan adiga u kaadi xal soo ma wadida ama adiga kaligaa ma lihida waa lagula leeyahay xalka ay yiraahdaan yaan ka rajaynaynaa laakiin mushkilad looma uumiye mushkiladda inaan loo sii uuminin ayaan muxuu ahay ayagana ayaan talo ku siinaynaa oo aan leenahay dooray leeyihiin doorkooda ha qaataan saaxiibada Soomaaliduna ayagaa mas-uuliyadda ku dhacay waxa xumaanaya ayaga ka xumaanayaane inta indhaha kala qaadaan waxa ku habboon ay qabsadaan ha muujiyaano waxa ka maqan ha muujiyaano waxa ay rabaan ayadoo aan marna aanan la aadaynin in dhiig Soomaaliyeed daato in dhib dhaco in maxaan ku raad dhibaato ay dhacdo marna waa ka soo horjeednaa annaga haddaan nahay midowga murashaxiinta muxuu ahay waa ka soo horjeednaa taas gada ka dhacayso oo qoray iyo hub haddii la qaato yaanba ma aha beer in lagu soo falo looma qaadan qof in lagu dilo looga dhiijiyo lagu cabsi geliyo lagu barakiciyo ayaa loo qaata ama cadow kugu soo duulay in Soomaali dhexdeeda cadow isku ma aha dadkan wada hadal iyo walaalo bay wax ku leeyihiin qoray iyo baaba iyo maxaan ku raadaan magaciis wax kuma laha dhowrka 100 kilomitir gada noo jirta inta ka dhaxaysa ciidanka kuma mari karaan aqliga soo noqdo aqligu ha taliyo xigmadda iyo deganaanshaha iyo nabad jaceylka iyo dawlad jaceylku ha taliyaano rabitaanka iyo hanka iyo maxaan ku raadaan hanqaltaaga awoodda ha la soo xadidaan leenahay qof walba waa ku jirtaa hanqaltaag awoodda laakiin ha la soo xadido ha lagu soo xadido xayndaabka qaanuunka dhexdiisa awoodda aad raadinaysid iyo powerka aad rabtid iyo heybadda aad rabtid xayndaabka qaanuunka iyo dastuurka dhexdiisa ku raadi aad iyo aad u mahadsantihiin